iyada oo wali Djibouti uu ku sugan yahay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday maanta qaybta data center shirkadda Djibouti Telecom qaybta cable Sumeraga ee Haramus waxa hadaba halkaasi ku soo dhaweeyay kolkii uu soo gaaray madaxweynaha Somaliland wasiirka warfaafinta mudane Radwaan Cabdullaahi Bahdoon يا agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom mudane Maxamed Asoowe Buuha iyo mas'uuliyiinta shirkadda Djibouti Telecom xaruntaasi data center ee ay maraan qaabilsan iyadoo dhinaca harkaha cable Sumeraga ayaa mid u adeegta dhammaan dalalka degmada waxa kale oo halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Djibouti Telecom kadib waxa halkaasi macne ka siiyay sida xaruntaasi u hawlgasho agaasimaha shirkadda Telecom mudane Maxamed Asoowe Buuha waxaana uu uga waramay sida xaruntaasi Haramus ku taala ay u shaqayso iyo harkahaasi badda hoostooda mara ee u adeega warisgaarsiinta dalalka degmada waxa kale oo macna halkaasi ka siiyay khabiirada iyo injineerada shirkadda Telecom habka iyo nidaamyada ay u hawlgasho qaybtaasi Haramus oo iyadu lafdabarka shirkadda Telecom kadib waxa halkaasi uu ku saxay madaxweyne Biixi booga dahabka haddaba waxa aan waraysi la yeelanay mudane madaxweyne Muuse Biixi kadib booqashadaasi ku soo kala galabiyay goobaha kaabayaasha dhaqaale ee jamhuuriyadda Djibouti waxaana uu yiri saatani ilaa shalay waxa ilaahay mahadiye inaan arkaynay horumarka uu samaynayo dalka Djibouti waxaana la hubaa dhowr waxyaalood oo horumarka ay gaar u leeyihiin sida aan shalay sheegay dadka Djibouti vision code wuxuu siiyay oo ku dhiiradeen iyaga oo dalahaan iyo dadahaan dalalka Afrika ugu dad yar inay haddana u adeegaan Afrika oo dhan kuwa jasiiradaha mooyee qaarada Afrika gudaheeda waxay ku yaal konton dal ka badan inuu vision code siiyay inay xiriir yeeshaan baabirtay oo u adeegaan programyada ay sameeyeen way dhaafeen in iyaga quraaxato shalay waxaan aragnay programkii goobta suuqa xorta oo ku talagalay ilaa Congo ee gaarsiya ay adeegaan maantana waxaan u aragnay qoladii isgaarsiinta telefoonada oo iyagoo halka yar ku yaala dalka ugu badan ay yaalaan xarko international iyo regional ba oo doonayaan in noqdaan markaa xaruntii hab meel telefoonada oo dhamay waana gaareen oo dalka kale ka dheereeyay marka haddii halkan yaalaan in kii kale uu xarig isaguna ilaa waan dhigayaa isku eriyada way ka dheereeyeen way kana diyaar marka hadda daba orado way kana diyaar marka hadda daba orado warqadno laakiin waxa weey hortaawaan meel uga sii diyaarsaday walkayga marka ahlo saal ila shaqayso way kana diyaar marka haddii halkan yaalaan in kii kale uu xarig isaguna ilaa waan dhigayaa isku eriyada way ka dheereeyeen way kana diyaar marka hadda daba orado way kana diyaar laakiin waxa weey hortaawaan meel uga sii diyaarsaday walkayga marka ahlo saal ila shaqayso